asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaarta hawada naga dhegeysanaysaay kusoo dhawaada radio s p r qeybta k f a i barnaamijka caawa waxaan idinku soo diyaarinay arrimo ku saabsan arrimaha ku noqoshada iskuulada dugsiyada Minneapolis oo dib u furmay sanadkan 2012 iyo 2013 barnaamijka caawa waxaa marti inoogu ah laba mas-uul oo ka tirsan mas-uuliyiinta ku nool magaalada Minneapolis maxamuud nuur oo ah mas-uul Soomaaliyeed ahna xubin aad u muhiim u ah oo u firfircoon kana tirsan dadweynaha ku nool magaalada Minneapolis. Maxamuud waa ninkii usoo tartamay qaybta sanadka waliba iyo maxay ahaydey iyo waliba school board oo Minneapolis. Waxaa kaloo marti noogu ah Cabdiraxmaan Aadan oo ah isaguna mas-uul Soomaaliyeed oo ka tirsan shaqaalaha iskuulada dadweynaha ee Minneapolis. isla markaana haya qaybo badan oo muhiim ah oo ay ka mid tahay qaybta xiriirka iyo waliba isku dubaridka. Cabdiraxmaan iyo Maxamuud labadiinaba aad baad u mahadsantihiin kusoo dhawaada barnaamijka. aad iyo aad baa mahadsan tahay. waxaan ogsoonahay dhammaanteen in ay iskuuladii dib u furmeen laguna noqonayo. waxaan jeclaan lahaa inaad Cabdiraxmaan nooga warantid sidii ay ugu habboon oo loogu diyaar garoobi karo ku noqoshada dugsiyada dhinaca qaybta waalidka iyo waliba ilmahaba. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka hore waxaan rabaa inaan u mahad celiyo bahdiinaan miidiyada s b r oo lagu martigeliyey meeshan. dugsiyada waxaa lagu laabtay bishii August 27keeda 2012 oo ahayd maalintii ugu horeysay ee dugsiyada. 29kiina waxaa ku laabtay waa 27 waxay ardada fasalka koowaad ilaa iyo 12 halka 29kiina ay uga laabteen pre-K-ga iyo kindergarten. waxa ugu muhiimsan marka wuxuu ahaa olole cusub oo la sameeyay ee la yiraahdo Attempt to Achieve oo macnaheedu uu ahaa in la kordhiyo cadadka ardayda maalin walba dugsiga imaanaya. faaladeedana dib ayaan u gudagalaynaa haddii alla idmo. aad baad u mahadsan tahay. haddii aan usoo jeesto Maxamuud maxay kula tahay waalid ahaan sida ugu fudud oo ay waalidiintu ugu celin karaan ilmaha dugsiyada iyadoo aysan kala kulmin dhibaato? asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. horta waxaan u mahad celinayaa s p r oo maanta maaragtay oo nagu soo dhaweysay raadiyahan iyo telefishinkaba. waxaan waalidiinta u sheegayaa inay muhiim tahay sanadka hadda cusub oo iskoolka bilowday inay ka warhayaan ardaydooda caruurtooda waxbarashadooda heerkay marayaan. sababta bilowga muhiim ah inaad barataan macalinka oo ardaygaada barayo hadda tababarayo. waa muhiim waalidka inuu ka warhayo nidaamkii iyo waxyaalihii isbedelay oo waxaan rajeynayaa inaan ka wada hadli doono maanta. aad baad u mahadsan tahay. haddii aan usoo laabto Cabdiraxmaan, dadka badankiisa waxay aaminsan yihiin maalmaha ugu horeeya iskuulka lagu noqonayo in ay yihiin maalmo aad u muhiim ah. faa'iideynta la eg ayay leedahay u diyaargarowga maalmahaasi? waa su-aal iyo aad qaali u ah. waxaa weeye Soomaalida waxay ku mahmaahdaa alif kaa xumaada albaqruu ku dhibaa. macnaheedu waxaa weeye ardaygu maalinta u horeysa ee iskuulada lagu laabanayo waxaa la sameeya wax la dhaho open house. open housekaas waxaa isbarta ardayda, wuxuu ardaygu bartaa ardayda kaloo la fasalka ah, wuxuu bartaa macalimiinta, wuxuu kaloo bartaa barnaamijyada iyo xisadaha uu qaadanayo. taasi waxay sahlaysaa ardaygu maalinta koowaad ee dugsiga uu tago in uu yaqaano meesha uu tagayo, fasalka uu tagayo iyo xisad walba waqtiga uu tagayo. waalidka waxaa muhiim ah si uu u ogaado ilmihiisu inay aflahaan, waa muhiim inuu yaqaano dugsiga, maamulka, macalimiinta, isla markaasna uu iyaga la hadlo oo wuxuu uu doonayo uu ku yidhahdo waxaan doonayaa waxa iyo waxa iyo waxa. macalimiinta iyo maamulka waxay dhegaystaan waalidka u yimaada ee danahooda u sheegta. marka aad iyo aad bay muhiim u tahay. waxaanan ku boorinayaa waalidka Soomaaliyeed inay xoog saaraan si kasta oo ay kula xiriiri karaan dugsiga, hadday noqon lahayd marka hore uu bilaabanayo, hadday noqon lahayd shirarka dugsiga laga qabto, iyo haddii ay noqon lahayd sidii ay u weydiisan lahaayeen kaalmaha ilmahooda siiyaan. aad baad u mahadsan tahay. waxaa jirta inay waalidiinta qaarkood aaminsan yihiin in ay khasab ku tahay maalinta ugu horeysa oo open houseka ay dadku tegayaan. ma arrin khasab ah baa inay tagaan haddii aysan ahayn si oo ay optional tahay? waan ognahay inay faa'iido u leedahay, laakiin dib ma u dhigan karaan oo ballan ma samaysan karaan? waxay ku xiran tahay in laba u kala qaadno. ka soo qaad ardaygaasi inuu yahay arday dugsiga iskuul first grade ahaa oo sanadka dambe second grade tagay. ardaygaasi iskuulka iyo macalimiintii wuxuu dhan wuu yaqaanay. hadduu ardaygu fasalka shanaad ka gudbayo oo lixaad uu tagayo,
waa dugsi cusub hadduu sideedaad ka gudbayo oo fasalka sagaalaad tegayana waa dugsi sare haddaad maalinta ugu horeysa waa maalinta ardaygu jadwalka qaadanayo waa maalinta ardaygu uu garanayo ardaydii la fasalka ahayd iyo macallimiintii haddii aadan maalinta ugu horeysa aadan tagin waxay dhib noqonaysaa maalinta dambe waxaad imaanaysaa adigoo markaa habqan ah oo aan garanayn fasalka u socotid iyo kalaas walba meeshuu tegayo marka aad iyo aad bay muhiim u tahay maalinta qofka kaa soo horeeyaana waa nin maalin kaa horeeya marka aad iyo aad bay muhiim u tahay ardaygu markuu u kala gooshayo dugsi hoose dugsi dhexe dugsi sare meeshii uu joogay maha waa meel kale waa muhiim waalidku maalinta koowaad intaan iskuulka la furin baa open house ku yimaadaa marka macnaha loogu talagalo waxaa weeye ardaygu inuu ogaado lokarka uu wax ku ridanayo inuu ogaado iskuol baska qaadayo inuu ogaado xisadda uu galayo home roomkiisi iyo waxyaabihii waalidkan markaa fursad buu haystaa macallimiintii uu kula hadlo uu ku oran karo macallin walba inta la fadhiisto waxaan doonayaa ilmahaygu inuu xagga akhriska waxaan rabaa ilmahaygu inuu jaamacad tago inuu Harvard University tagaan rabaa waxay ka bilaabataa kindergartenka markii waalidku ilmaha ay u hadlaan oo macallinku uu maqlo codka waalidka macallinka waxa sahlanaanaysa in uu si alla sidii kastoo ardayga loo caawin karo uu ku caawino marka anigu waxaan oran lahaa optionba ma ilaahdeen maalinta koowaad ee dugsigu waa lama gudbaan waad mahadsan tahay waxaan jeclaan lahaa su-aalina labadiinaba idin weydiiyo waalidiintu waxay jecel yihiin in ay ka qayb qaataan waxbarashada ilmahooda laakiin haddana waalidiin badanoo waxaa jira aan haysanin fursad ama fursad ma ahane aan haysan resourcekii qaabkii ay uga qayb qaadan lahaayeen iskuulka tegistiisa hadday noqoto in sidii ay ku tegi lahaayeen macallimiinta ay la hadlayaan luqad ahaan luqadii ay dhinaceeda ay ka xaniban yihiin haddii aan maxamuud weydiiyo su-aashaas maxaa ka caawin kara waalidiintu in ay helaan resource islamarkaana qayb iyadoo af soomaali ama ku qoran ama af soomaali loogu jawaabeeyo si ay si toosa uga qayb qaataan waxbarashada ilmahooda runtii waxaa waaye waalid walba wuxuu jecel yahay inuu ardaygiisa ama cunugiisa inuu ka gaaro guul weyn waxbarashada taaset waxaa waaye muhiima waalidkii sida ula xiriiri lahaa iskoolka asiga ku xiran tahay kow taasna waa muhiim sababta waxaa waaye qofkii la xiriira iskoolka oo barta macalinkii iyo barnaamijkii iyo xiisada sida loo bari lahaa arday waxaad ka caawin kartaa homeworkii waxaad ka caawin kartaa maaragtay xiisadihii maaragtay ku adkaa cunugii si uu guulaysan lahaa sidee baad u heli kartaa haddii aad awoodi karin luqadda ay kugu adag tahay sidaan u ognahay iskool walba waxay leedahay aid ama qof oo kalkaaliyo caawin karo macallimiintii waalidiintii qof xiriir u dhexeeyo macallinkii waalidiinta wuu ka faa'iidaysan karaa haddii maaragtay macluumaadkaas uu heli karin oo xafiiska sare oo Minneapolis Public School waxaa u xil saaran inay ku maaragtay ku diyaariyaan qof ku tarjumo waxaa malaynaya Cabdiraxmaan baa maaragtay faahfaahin dheeraad naga siin karaa arrintaas waa sida maxamuud ugu nuuxnuuxsada laakiin marka ugu horeysa waxa weeye waa sax weeye waalidku haddii uu dhib ku qabo afka waxa weeye waalidku waa awoodda keli ah ee iskuulka ka jirta iyaga ayaa ah dadka codkooda la maqlo haddii aanay ku hadlin afka ingiriisiga ah oo ay u baahan yihiin ama in wax loo tarjumo ama tashiilaad ama waxa loo yaqaano dhigaalka ama resourciga ood ka sharqabisay waxa ay u baahan yihiin xataa uma baahna inay ingiriis ku hadlaan labada xabo hadday tuurtaan macallinka iyo iskuulka khasab ku tahay waalidkaas wuxuu ku hadlay wax ka tarjuma inuu keeno hadduu soomaali yahana iskuullada ay u badan yihiin ilmaha soomaalida ah ee Minneapolis Public School waxaa ka wada shaqeeya macallimiin iyo kaaliyayaal macallimiin oo iyagu ay tahay in ay waalidka la socodsiiyaan wixii macluumaada oo jira laakiin waxaan ku weydiinayaa oon rabaa inaan kuu sheego Soomaaliya waxay ku mahmaadaa war helaa tala hela markaad adigu tilmaanto in baahi ku hayso markaabaa halkii laga fakaraa marka waalidku way ogsoon yihiin haddii ay dugsiga tagaan in ay helayaan tashiilaadka iyo wixii u tarjumana laakiin waa maxay waa inay weydiistaan sax warun waxaa jirta in ay dadka qaar aaminsan yihiin in iskuulaadka ilmaha waalidiinta aan la xiriirin iskuulaadka macallimiintu iyo waalidiinta ilmaha la xiriirin iskuulkooda la xiriira macallimiintooda in aysan macallimiintu isku si u qiimeynin ilmahaas oo ay attentionka siiyaan ilmaha waalidkood uu iskuulaadka la xiriiro Cabdiraxmaan maxaad u malaynaysaa arrintaas in ay xog tayo intee laga leedahay ama dhibaato intee laga ku keeni kartaa miisaan baan ku cabirayaa waxa weeye Soomaalida waxa ku mahmaadaa nin aamusan habartiba qadisay macnaha waalidku waa afka
u hadlaya ilmaha markaad macalinka u timaado ood ku tiraahdo macalin anigu af iyona ma garanay waxna ma garanay waxaan doonaya inaad cunugayga caawinto macalinku wuxuu khasab ku ah in uu waxaad ka cabatay uu kaa caawino markaad u tagta dugsiga adigoo diyaarsan oo waxaad leedahay macalin anigu waxna ma qoro waxna ma akhriyo ma ii sheegi kartaa siyaabaha cunugayga aan u caawin karo maxaan ku caawin karaa hal tusaalaan soo qaadaya soomaaliya markaan joognay waalidkeen kama soo wada bixin iskuul ma wada baran laakiin waxaan beegan jirnay sokor iyo yaanyo iyo rubuc iyo tumun iyo waxaasoo dhan waa xisaab marka ilmaha waalidkood iskuulka ku xiran yahay way adag tahay inay dugsiga ay ka habsaamaan ama ka saaqidaan maxaa yeelay waxaan ku tilmaamaynaa waalidka dugsiga iyo macalinkuba waa triangle waa saddexagalku markuu isku xiran yahay ilmihii meel ay ka baxaan ma jirto waayo macalinkii iyo waalidkii baa wada og marka wuxuu odhanayaa waxaya macalinka taga iga caawi laakiin haddaan waalidku imaanin waxa aalaaba dadka ajnabiga ahi ay iska dhaadhiciyaan ama yidhaahdaan waalidkaas ilmihiisa ma jecla markaanu u sheegno ilmaha soomaalidu ilmahooda waa jecel yihiin laakiin meesha waxaa ka maqan aqoon soomaaliya markaan joognay macalinka ayaa aabbe iyo hooye ahaa haddana waxaa la rabaa waalidku inay u noqdaan codkii u hadlayay marka waalidka waxaan u qaabaynaynaa wixii xog ogaala hadda waxaad ka sharqamisay wixii turjumaad ah waalidka wixii jiraano af ay yaqaaniin ugu sheegaynaa iyagaa laga doonayaa inay inta ka ambaqaadaan waxyaabaha ilmahooda u baahan yihiin ay sheegtaan waad mahadsantahay maxamuud haddii aan ku weydiiyey su-aal adigu maadaama aad waalid tahay oo ilmahaga iskuullada dhigtaan sidoo kalena waxaan qiyaasayaa inaad si fiican uga warqabtid iskuulaadka in maadaama aad usoo tartantayba kaalin weyn oo muhiim ah dhibaato intee laga ayay waalidiintu waxyaaba ma nooga sheegi kartaa waxyaabaha dhibaatada ama waxyaabaha ay waalidiintu tabtaan ama ay tabanayaan marmarka qaarkood oo ay isleeyihiin waxyaabahan ayaa muhiim ahaan lahaa waalidiinta in laga caawiyo ama adigu baad isleedahay runtii ani shaksi ahaan waxaan la xiriiraa macalimiintaan la xiriiraa iskoolka dhiga oo macalimiinta oo barayo caruurtayda waan la xiriiraa usbuuc walba waa la xiriiraa oo sifaan u ogaado xaaladdu ku sugan yahay wixii lasoo baray wixii dhibaatadu kala kulmaayo aniga baa og moogta waalid ahaan guriga markaan joogo cunigi waa inaan ka caawiya homework haddii aan awoodi karinna waalidiinta midda weyn ee ka cabanayaan waxaa waaye qof ka caawiya homework taaseeta waxay muujinaysaa waa inaad maaragtay aan la xiriirnaa resourcekii uu sheegaya walaalkiin cabdiraxmaan iskoolada weydiistaan bulshada weydiistaan iyo xaafaday degan yihiin maaragtay inay ka ogaadaan meesha laga caawin lahaa homework taasaa aad iyo aad muhiim u tahay qofkii haddii cunugii lasoo dhiso guul weyn buu ka gaarayaa aniga ahaan waalidka waxaan ka codsanayaa waalidiinta kale luqadda hadday nagu adag tahay maaragtay p t o-da ama waxaa lamid baa jiraa oo iskool walba wuxuu leeyahay xubin oo waalidiinta isku xiro inuu maaragtay la soo xiriiro usbuuc walba maaragtay ka warhayo cunugiis maalin walba inuu weydiiyo markuu iskool ka soo laabto cunugii uu weydiiyo maxaa maanta lagu soo baray oo homework miyaa lagu soo siiyey markuu miiska la fariisto oo ardayu ka caawiyo wuxuu dareemayaa maaragtay cunugiisa inuu wax baranayo haddii kale maaragtay telefishinka haddii loo shido haddii geemkii cunugu maaragtay loo shido oo la ogolaado waxyaalo badan oo maaragtay madadaalo cunugii guulka ma gaaray waxbarashada aad baad umahadsan tahay haddii aan idin weydiiyo su-aal ku saabsan waalidiinta waxaa jira waalidiin hal waalid uu ilmaha hayo ama abti ama habaryar ama hooyo ama aabe ama awowayayo waxaa jirta sidoo kale inay mas-uuliyaddii kale oo gudahaaneed hayaan ilmihiina waxbarashadoodii la dadaalayaan sideebaa ugu fudud ayaad umalaynaysaan inay waalidiintaasi ilmaha waxbarashadooda kula dadaali lahayeen haddii aan su-aashaas ku hormaro maxamuud run ahaantii maaragtay shaksi ahaan haddaan iska hadlayo anigoo maaragtay caruurtayda ka caawiya homework waxaan fursad heli karaa inaan ka caawiyo arday kale badanaa gurigaa ligu keenaa marmarka qaarkiin waxaa ugu tagaa guryahooda baan ugu tagaa taasi waa muhiim ah bulshada inay isxil qaado sifay ku gaari lahayn guul ardayda soomaaliyeed taas waa mid anaga iga soo go-an laakiin waxaan ka codsanayaa walaalayn kale inay caawin karaan oo maaragtay fursadooda siiyaan muhiimka laakiin waa muhiim waalidka inuu ogaado meeluhu maaragtay kaalmada ka heli karo sababta shaksi waxba ma fulin karo wuxuu u baahan yahay kaalmo ziyaado oo mar walba waa inuu asaga garanayo meeshuu ka heli lahaa faa'iida waxaa waaye faa'iidada uu ardaygaaseyt uu heli lahaa asagunba maaragtay raadsan karaa taasaa muhiima aad baad umahadsan tahay cabdiraxmaan maxay kula tahay su-aashaas waxay ila tahay waalidku haddii waa nasiib weeye haddii waalid keligiisa uu maaragtay ilmaha uu korinayo meel kasta oo waalidku degan yahay waxay u badan tahay waxaa degan dad kale oo iyagu soomaali ah
waalidku inuu xiriir bilaabo oo markaa uu dadka waalidka kale oo ilmaha kale oo isku danta yihiin inuu intuu la xidhiidho isla markaasna uu musaacado ama kaalmo u weydiisto. waxaa laga yaabaa in waalidka tusaale aan ka soo qaaday inuu ilmo dugsiga hoose haysto ay la degan yihiin waalid Soomaaliyeed ilmo dugsiga hoose haysta. waalidkaas sibay mucaawino u doontaan markay waalidku ay wada hadlaan dhibka jirana ka wada wadaagaan waxay soo saari karaan xal way caawin karaan. waxaanan ogaataa inaanay suuragal noqonayn haddaan ilmahaagu aysan badbaadin kuweyguna ma badbaadi karto. waxaa muhiima marka waalidku in ay si wada jir ah waalidka kale oo keligiis ah nasiibkay ku noqotay Soomaaliya markaan joogna uma badnayn oo waxa way adeer iyo abti iyo eedo iyo awoowo intaba waxay hayeen immediate family member bay noo ahayn laakiin America unba halkan ku noqotay qofku hadduusan ku dhalan hay taaban. marka waxaa habboon si kastoo waalidkaasi mas-uuliyaddii uu hayay baa 3 jeer jimbaarmaysa oo waxaa laga rabaa inuu ilmihii u shaqeeyo, waxaa laga rabaa inuu ilmihii iskuulkooda ka warqabo, waxaa laga rabaa guriga markay joogaan inuu maamul u sameeyo. waalidku marka waa in uu sidii uu tashiilaad ku heli karo oo waalidka kaloo lamida oo isku danta yihiin uu la xidhiidho. markaa waalidku markuu wax sameeyo oo raadiyo dadaalkii la yimaado waxaa la yiri maaragtay inama al-a'maalu binniyaat. qofku waa inuu wixii ka maqnaa iyo waxa dhibayo uu dadka la wadaago. the problem shared is half solved. marka ka bacdi cid la xalisa oo lamida ayaa soo baxay. meesha una fadhiin oo kaligay baanahay ha oranin oo dacwadii badan laakiin waa in aad la tacaasho. tacaala baan ku oranaya ilmaha la tacaala. waxaa jirtaa ilmuhu inay isugu jiraan marmarka qaarkood ilmo dugsi hoose ku jira, ilmo dugsi dhexe ku jira iyo kuwo dugsi sare ku jira. koritaankooda iyo maskax ahaan iyo baahidoodubana way kala gedisan yihiin. kuwa ayaad u malayn ayay tahay in muhiimadda weyn la saaro ma kuwa waaweyn in lala dadaalaa si ay kuwa yaryar ugu daydaan mise waa in kuwa yaryar lasoo dhiso si ay markay waaweynaadaan iyaguna ilmo habaysan oo diyaarsanaya u noqdaan. haddii aan taas ka jawaabo waa muhiim cunug dhaladka markuu dhasho ilaa uu ka gaarayo da'da 8 in xoog la saaro waa muhiim aad iyo aad wayso. sababta waxaa waaye maskaxdii cunuga waqtigaasay tay furan tahay oo maaragtay waxbarashada ugu fiican tahay. markii cunuga wax la baro kuwa waaweynna maaragtay waa diyaar mar hore aad soo bartay soo tababartay hadday kaalmo ziyaado u baahan yihiin meeshaad ka qabanaysaa laakiin ardayda kuwa ugu yaryar muhiima in xoogga la saaro. kuwa kalena maaragtay haddii ay awoodi karaan waxay caawin karaan kuwii maaragtay oo yaryar. waxaan su-aasha u qaadaa dhigayaa sidii kow aragtideeda anigu waxaan odhan lahaa weel guntu ka unkama. ilmuhu markii ay dhashaan oo ilaa iyo markay fasal ay ka gaarayaan da'da 5 sannadood waa xilliga loo yaqaano early childhood waa pre schoolka. xilligaas waa ilmaha xilmigu hadaaqa barto waa markay hadalka maqlaan waa markay fakarka la maro waa marka ilmuhu wuxuu yahay la urbixiyo oo loo urbixiyo ilmaha la ogaado. waxaa muhiim ah ilmaha asaaska gunta ah in laga dhiso. cilmi baaris baa waxay tilmaantay in ilmaha maaragtay markii ay fasalka 3aad joogaan akhriskooda iyo fahamkooda uu aad u sareeyo ay u dhowdahay inta badan inay dugsi sare ka qalin jabiyaan. mideeda kale ilmaha markay dugsi hoose ku jiraan iyo dugsi dhexe markaad ilmuhu waa curdan waa ku leexleexsamayaan. markay dugsi sare gaaraan way gahayrta ama way gaamuraan marka waxba kama bedeli karto waa Allah wato wehel uma baahna way ku ilmuhu laakiin inta uu ilmuhu uu korayo waa in aad oo jilicsan yahay waa inaad wixii input ah aad geliso. waalidka waxaan ku oran lahaa ilmaha markii uu dhasho ilaa iyo da'da uu dugsi ka gaarayo waxaynu hore u naqaano ma ahayn waa in ilmaha intaa waqti la geliyo. ilmuhu 10 sano intay ka gaarayaan haddaad wax geliso 10ka ku xiga wuxuu bartay iyo waxaad gelisay uu aayaya. hadday dhacdo waalid dugsi sare inuu yahay oo ilma aan hadda dugsi hoose u dhigana waxa weeye in ilaahay looma dardaar wariyo laakiin waxaan ku oran lahaa qofku inuu amin hore bilaabo inuu ilmihiisa u ogaado. ilmuhu hal mar habeen ma dhacaan meel bay ka bilowdaan. aad baad u mahadsantahay aniga oo waqtiga fiirinaya waxaan jeclaan lahaa inaan idin weydiiyo su'aalihii ugu dambeeyay. waxaa jira ilmaha qaarkood inay dugsiyada high schoolka ay drop out gareeyaan ma jira barnaamij ay ugu talagashay waxaan su-aashan jeclaan lahaa inaan weydiiyo Cabdiraxmaan ma jira barnaamij ay ugu talagashay iskuulada dadweynuhu ay ugu talagaleen ilmaha in ka hortag sidee ayaa habboon waalidiintu inay uga hortagaan arrintaas? barnaamij wuu jiraa laakiin ereyga ka hortag baad bilowday. ilmo kastaba maaragtay markii uu
drop out u noqonaya ama uu dugsiga ka tegayo habeenuu madow ilmuhu kuma dhasho ilmuhu markii sidaan kuu sheegay fasalka saddexaad markay jiraan hadday wax akrin karaan ilmahaasi moralkiisa iyo maskaxdiisa wuxuu dhan way isfurfurayaan laakiin markay arkaato fasalba fasal ka dambeeya waa ka adag yahay markaa weeye markuu dugsiga sare uu gaaro ilmuhu ay gadaal usoo laabtaan waxaa marka jira barnaamij waxaa jira ay iska kaashadeen Minneapolis Public School iyo City of Minneapolis barnaamijka waxaa la yidhaahdaa we want you back waa WWYB macnaheedu waxaa weeye haddii ardaygaa si kastaba ha noqoto anigu ereyga aan drop out waxaan ka jeclaan lahaa aysan waktigu iyo waayuhu u suuragelin inuu dugsiga sare dhammaysto waxaa la siinayaa hadduu soo laabto ardaygaasi waxaa qiimeyn baa lagu samaynaya wuxuu soo wici karaa waan haddan ku siinaya cid kastoo maqlaysa 6-2-6-6-8 waa xafiiska dhexe ee communicationka qof kasta oo Soomaali ah ama aan Soomaali ahayn ee aan u suuragelin inuu dugsiga sare dhameeyo rabaana inuu ku laabto waxaan loo hayaa barnaamijka WWYB oo ah we want you back waxaa la siinaya kaarka markaysaa go to baska markaysaa waxaa qiimeyn baa lagu samaynayaa markaa ka bacdi inta dhibcood ee ka dhiman oo uu ku qalin jabinaya loo sameeyay kadibna waxaa la siinayaa shahaadadii dugsiga sare haddii ilmahaasi uu ahaa ilmo markiisa hore soo dhigtay waxbarashada caadiga laga hadlimaya ABE waxa loo yaqaan ama adult based education waa inuu yahay regular air classeska K2 to alif ilmo ku socday aad baad u mahadsantihiin waxaan jeclaan lahaa gabagabadii su-aashii ugu dambeysay labadiinaba inaan idin weydiiyo aniga isku kindaray 2 su-aalood ta koowaad ma jiraan waxyaabo cusub oo kusoo kordhay dugsiyada dadweynaha jeclaan lahayd inay nala wadaagtaan oo waalidiinta muhiim u ah iyo ardayda intaba ta labaad maxaad talo ah oo aad siin lahaydeen guud ahaan waalidiintu sida ilmahooda waxbarashadooda u kobcin lahaayeen sanadkan 2012 dugsiyada dadweynaha ee Minneapolis marka laga reebo oo dugsiga sare weeye waxbarashada caadiga ah oo ama loo yaqaan regular ed marka laga reebo dugsiga la yiraahdo South High iyo South West waxaa la joojiyay kaarkii baskii jaalaha ilmaha qaadi jiray badalkiisi waxa qaadaya tareenka iyo basaska magaalada sababta taa loo sameeyay waxa weeye dugsiyada dadweynaha Minneapolis ayaa sanad dugsiyeedka 2012 waxay sameeyeen barnaamij loogu magac daray Attend to Achieve oo macnaheedu waxa weeye imaw ad aflaxdida macnaheedu waxa weeye ilmuhu haddii ay 95% ay yimaadaan dugsiyada sida cilmi baaris cadeysay waxaa suuragalay inay hal iyo bar jeer ay himiladooda gaaraan oo waqtiga loogu talagalay ku qalin jabiyaan waxaa maada aanay ku dhicin uu hagaagayo xisaabtooda uu hagaagayo akhriskeedu isla markaasna ay ilmahaas ka gudbayo taan li ajligeed ayaa waxaa loo sameeyey programkan la dhaha Attend to Achieve oo ah macnaheedu yahay 90% ilmuhu inay yimaadaan waayo ilmuhu haddaanay dugsiga imaan see ku aflaxayaan iyo sanadka dambana waxaa kaloo ku soo biiraya dugsiyada South iyo South West oo labada dugsiyo 7 iyo 6 ee Minneapolis oo dhammaan ay wada qaadayo oo dhan metro transitka ama city buska sababaha waxa weeye number 1 ardaygu haddii baski jaalaha ka tago baska yelowga wuxuu anfacayaa wuxuu la isticmaali karaa 7 days 7 bariba 5 aroornimo ilaa iyo 10 fiidnimo ardaygu library buu ku tagi karaa ardaygu jaamacad buu ku booqon karaa ardaygu shopping buu ku soo samaysan karaa ardaygu qaraabo ku booqon karaa laga bilaabo maalinta dugsiga la furay waxay ahayd August 27 ilaa iyo June 15 haddii alla idmo 2013 marka taas waxay anfacaysaa haddaad dugsiga ka maqan tahay kaarku waaba isagaa bay automatic isjaraya marka dhinacna waxay kordhinaysaa cadadka ardayda imaanayay ardaydu markay timaado waalidkuna ay iskuulka ku xiran yihiin khasab bay ku tahay dugsigu inuu qabto shaqadoodii ilmuhuna way aflaxayaan aniga ku darsanayo maaragtay cabdiraxmaan ariyadu soo sheegay waa muhiim waalidku inuu fahmo curriculumkii oo nidaamkii lagu shaqayn jiray no child left behind in laga saaray meesha oo curriculum cusuban oo focused la dhaha oo maaragtay studies oo ardayga loogu talagalay waa jira nidaamkii hore waa shaqayn waayey mid cusub baa hadda lasoo bandhigay waalidkii wuxuu u baahan yahay inuu fahmo oo ka codsada maaragtay sida cabdiraxmaan iyo meesha ka shaqeynaya Minneapolis Public School inay dadku u soo shaciyaan oo u sheegaan nidaamkan cusub sida uu shaqeyn doono taas waa muhiim dardaarankayga maaragtay waxay noqonaysaa waalid walba waa muhiim
inuu ku xirnaado iskoolka ardaygu dhiganayo waa muhiim inuu ka warhayo ardayga wuxuu baranayo taas baa aad iyo aad muhiimta guusha maaragtay oo la sheegayo waxbarashada waa intaasayt aad baad u mahadsantay cabdiraxmaan iyo maxamuud labadiinaba aad baad u mahadsantihiin mar labaad khayaarta hawada naga dhegeysaneysay halka aad weli nagala socotaan waa radio s p r qeybta k f a i barnaamijka caawa waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah baarliin waxaa igala qeyb qaatay cabdiraxmaan aadan iyo maxamuud nuur inta aan dib dambe hawada ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo